waxaa laga yaabaa inaad leedahay accounts fara badan hadday noqdaan TikTok, Instagram, YouTube iyo sidoo kale Twitter, balse aadan garanayn baasweedhadoodu heerka ay ka joogaan in la garaagareeyo ama la jabsado. insha Allah maanta muuqaalkeena waxaan kula wadaagi doonaa qaabkii aad u ogaan lahayd baasweedhkaagu heerka uu ka joogo in la jabsado, iyo sidoo kale muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa qaabkii aad u adkeysan lahayd ama uga ilaashan lahayd dadka hackers-ka inay jabsadaan baasweedhadaada. ha noqdo mid walba account kasta, hadduu noqdo Facebook iyo sidoo kale YouTube. السلام عليكم magacaygu waa maxamed jaamac sidoo kale youtube-ka daawanaysid waa Mohamed. sida title-ka hore kusoo aragtay ama hordhici muuqaalka waxaan idinla wadaagi doonaa qaabka aad ka ogaan lahayd heerka baasweedhkaagu ka joogo in la jabsado. ma baasweedh adag ba ma baasweedh jilicsan ba sidoo kale ma baasweedh madaxaad ba. marka maanta muuqaalkeena waxaan kula wadaagi doonaa qaabkaas iyo sidoo kale qaabkii aad u adkeyn lahayd baasweedhkaaga haddii uu yahay baasweedh jilicsan. waxaan ku leeyahay daawasho wacan. marka ugu horeysa waxaan soo furanaa application-ka ama programka lagu magacaabo Chrome-ka nimka soo furatid description-ka hoose idin dhigaya website-kan si aad u ogaataan password-kiina heerka uu joogo in la jabsado iyo in kale. marka description-ka hoose markaad ku dhufatid hore wuxuu ka geynayaa page-kan. marka xaggan ay ku qoran tahay enter password ama meeshan ay ku qoran tahay enter password ayaan korkeeda soo taabanana. marka halka taabatid halkan aad wax ku qoraysaa password-ka aad rabtid inaad tijaabisid. tusaale ahaan hadda waxaan gelinaynaa 1 2 3 4 waad aragtaa dhibka ay leedahay in password-kaaga aad ka dhigto xarf isku mid ah daqiiqadiiba iyadoo xataa aan wax second ahayn ayaa la jabsan karaa. sidoo kale waxaan ku eegi doonaa magaca channel-keena in la jabsan karo waqtiga ay ku qaadanayso. waad aragtaa adeer magaca channel-keena 5 sano ayay ku qaadanaysaa in la jabsado. marka sidoo kale waxaan ku eegi karnaa wax walba aad u baahan tahay ama password kasta aad u baahan tahay ayaad ku eegan kartaa. soo laabasho wanaagsan. waxaan rajeynayaa inaad password-kaaga soo ogaatay heerka uu ka joogo in la jabsado ma adeeg ba ma madaxaad ba sidoo kale fudayd ba. taana waxaad nagu reebi doontaa comment section-ka ama qaybtan comments-ka ama qaybta faallooyinka ayaad nagu reebi doontaa. sidoo kale waxaan u gudbi doonaa qaybteeni labaad oo ahayd qaabkee u adkeeya password-kaaga lacala haddii uu jilicsan yahay. badanaa dadku markay sameysanayaan account ha ahaado Facebook, Instagram, YouTube, dadku badanaa waxay isticmaalaan wax lagu magacaabo letters inay xarfo kaliya isticmaalaan markay password-kooda sameynayaan. balse taas waxaa ka fiican inaad password-kaaga aad ku darto horta marka ugu horeysa xarfo waaweyn, sidoo kale xarfo yaryar, sidoo kale calaamadaha hadday noqoto calaamada pluska, timeska, fishikwasha, calaamadahaas oo dhan inaad ku dartid hadday noqoto pointy, sidoo kale apostrophe-ka, waxaas oo dhan inaad saartid ama ku dartid password-kaaga. haddeerta waxaan tijaabin doonaa mid ku jira calaamadahaas oo dhan password ah qaabka uu noqdo iyo inta lagu jebin karo aan kusoo eegno program website-ka haddeeraan isticmaalanay. haddeerto waxaan ku eeganaa waxa iskugu jira xarfo calaamadahan oo kale xarfo iskugu jira iyo sidoo kale xarfaha caadiga ee letterska ayaan isku dhex daran. marka tusaale ahaan haddeerto 3 calaamadooda ugu horeeya ayaan soo qaadanay, sidoo kale magac ayaan kaga daranaa. sidoo kale waxaan ku noqonaa meeshii si aan calaamada ku darno. haddeerto waad aragtaa waqti aan inaba caadi ahayn ayay ku qaadanaysaa qofka hadduu isdhaho jabso password-ka noocan oo kale. marka waxaan kula talinaa badanaa inaad ka dhigtaan password-adiina xarfo isku jira, xarfo iyo sidoo kale nambaro iyo calaamadaha. badanaana dadka markaad sameysanaysid Gmail ama Facebook waxay ku oranayaan password-kaaga waa inuu 8 xaraf ka badnaada, sidoo kale isku jira calaamadaha. muhiimaduna waa in password-kaaga ku adkaado ayna yaraato inta laga jabsanayo password-kaaga. waxaan rajeynayaa inaad soo ogaatay faa'iidada calaamadaha ay ka joogaan heerka jabsiga inta lagu jabsan karo inaad soo ogaatay. waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga quruxda badan ee ku daawanaysay fiidiyogeena. waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay. waxaan rajeynayaa inaad channel-ka subscribe saartay, sidoo kale gambaleelka furatay. waxaana kaa codsan lahaa haddii ay jiraan dad asxaabtaada oo jecel inay ogaadaan password-kooda aad ugu yeedhid qaybta comment section-ka hoose. waxaan ku leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.